iyo asaasayaasha xisbiga Daljir golaha dhexe golaha fulinta iyo dhammaan akhyaarta kale ee halkan ku sugan ee aan la tirin karin wasiirro hore xildhibaano hore kulli waa joogaan dad badan baa jooga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan runtii aad ugu faraxsannahay oo aan idinkaga mahadcelinaynaa waxaa noo furan madashaan oo kale inaan ka mahadcelinno dadka sharafta leh oo qiimaha leh oo dhuuxa bulshada ah oo isugu jira dhaqan iyo siyaasad dhallinyaro iyo haween iyo culimo oo aan loo kala harin ee maantay nagu sharfay inay nagala soo qayb galaan waxaan runtii aad uga xumaa inaan ilaawo axsaabta siyaasiga madasha midnimada iyo dimuqraadiyadda golaha xisbiyada Soomaaliyeed iyo dhammaan axsaabta kale oo asxaabteyda aan dhufayska iskula jirno ee horteyda ka muuqda kama tegi kara iyaga anaa isku tiriyay marka aad baan ugu faraxsannahay soo dhawaada waxaa loo aasaasay xisbigan inuu ka jawaabo su'aalo saddex ah aasaaskiisii marka la sameynayay sanadkii hore mudduu soo socday dadku ma dhalan siyaasadana mudday ku soo jireen laakiin saddex su'aalood inuu ka jawaabaa loo sameeyey aaway dadkii lahaa dalkan inuu jawaab ka bixiyo yidhaahdo waana kana dadkii dalka lahaa oo difaacayay waa kana markii qolo walba ay goosatay cadkeedii aaway kuwii calaamadda midnimada u ahaa oo dowlad goboleed kastaaba qabiil walbaaba meeshiisii markuu goostay oo xuduudo la yidhi waa la samaynayaa dalka isku xirkiisa in cidi u istaagto waay ciddii u istaagi lahayd haddana qaadatay magacyadeenna waxaa weeye magacyo tiro badan oo ingiliish ah inta badan la isku magac daraa laakiin hal magac keliyaan qaadan Daljir gaaladii iyo muslimkii waa ku wareereen magaciis waxaan maxaa la yidhahdaa bay yidhahdeen macnihiisu muxuu yahay fasiraad baan ka bixinaa laakiin dadka Soomaalidu si fudud bay u fahmayaan sababtoo ah waxaan ugu talagalay in Soomaalidu fahamto qodobka saddexaad dadkii kalsoonidii baa ka dhimatay Soomaaliyeed cimaamad wadaad waa loo soo gashaday qabiil waa loo soo gashaday wax kasta waa loo soo gashaday maxaan idinku rumaysanaa bay yidhahdeen maxaan idinku rumaysanaa waxaan uga jawaabnay marka inaan si dhab ah u gudagalnay isla markaana inaan rabno inaan ka gudubno qabyaaladda siyaasadaysan oo xisbigeenu Soomaaliya oo dhan ayaa ka dhex muuqata kala qoqobnaanta ku salaysan gobolaysiga gobol gaar ah oo si gaar ah ula jiro ama gobol gaar oo si gaar ah isugu tiirinaya ma jiro iyo nidaamka kursi laaluushku gadashada inuu ka horjeedo oo soo bandhigo afkaar Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed afkaar ay wax ku dooran karaan oo ku xulan karaan hoggaankooda iyo meelaha bulshadu ka bogto mashaakilka bulshada inuu inta cilaaj u helo daawo u helo inuu soo bandhigo iyo in dalku nidaamka xisbiyada badan qaato oo halgan badan anaga iyo axsaabta kale hadda maanta horteena fadhida iyo kuwa kaleba aan ku jirno dadkuna hoggaamiyaashooda ay soo doortaan dalka dadkii lahaana ay xukumaan mararka qaarkood waxaa shaka ku jira waa nimanka halkan hadda jilayay abwaanada hadda noo jilayay dalkan ciddii iska lahayd baa mararka qaarkood shaki la gashaa sababtoo tahay calankeenii weynaa calamo yaryar baan ag dhignay identity-gii iyo haybtii Soomaalinimada yaa sii dhammaanaysa annagoo ka jawaabayna su'aalahaas ayaa 1 December 2014 lagu dhawaaqay xisbiga Daljir oo dhidibada loo aasay waxaana shicaarkiisa iyo halkudhigiisu yahay dal xora dad sharfan dal xor ah oo ay ku nool yihiin ama bannaanka jiraan dadkii soo sharfan madaxdeena marka la soo dhaweynayo wasiirro looma dira xitaa agaasimayaasha loo dira kursiga way ku fadhiyaan wasiirada arrimaha dibadda xitaa qaarkood ma soo dhaweeyaan iska daa dadka sale mar haddaan madaxdeenniiba la sharfayn annaguna dadka kalena sharaf arki mayaan marka shicaarkiisu waa kaasaa
hal sano kadibna waxaan soo bandhignay halkudhiga ah dal mid ah oo leh mustaqbal mid ah, one nation one future. hal qaran baan nahay, ma kala qaybsanin, qabaa'ilkeenna waa kala duwanaan karaan, waxaana leenahay hal mustaqbal, mustaqbalkaasina waa midnimada Soomaaliya ka turjumaya. waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo marka oo xisbigu ku tallaabsaday sidii walaalkeen xasan xaaji uu sheegay inuu dhismay aasaaskii in la dhisayay. waxaan u bixinay sanadkii aasaaska sanadkii hore, sanadkaana sanadka ambaqaadka la yidhahda waa indilaaqa, waa la ambaqaadayaa. waxaana lagu arkayaa tuulooyinka iyo degmooyinka gobollada dowlad goboleedyada kulli abaabulaha ka socda laga bilaabo Janaayo sanadka 2016 ama December hadda nagu soo foolena. waxaana lagu arkayaa xafladaha xisbigu ay ku qabsoomi doonaan gobollada iyo degmooyinka dalka dhammaantood. haddaan intaas uga gudbeeyay dalka dibaddiisa, waxaa xusid mudan in xafiisyo badan hadda ay furmayaan oo u dambeeyey dhowr maalmood ka hor xafiiska Birmingham oo UK, kii Jarmalka uu soo socdo, Holland ay ku xigto, Sweden, Norway, wadamada Yurub oo dhan iyo wadamada Kenya iyo Uganda iyo Djibouti iyo kulligood in xisbigu farcyadiisa uu ka furan doono. intaas markaan nahay waxaan ku dhex jirnaa axsaabta Soomaaliyeed oo wax isla raadinayna, kaligeen ma soconno. dalkan 4 qofood oo ismahadisay siyaasaadkoodii waa aragnay, xisbi kaliya ama koox kaliya oo ismahadisay oo intii kale wax ka xigsatana aragnay. waxaan wax ku raadinaynaa waxa weeye annagoo dhexda uga jirna xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira. intaas marka waa qorshaha dhow oo xisbiga. waxaa noo qorshaysan 6 shay baa noo qorshaysan. qodobka koowaad waxa weeye in dad ahaan iyo deegaan ahaanba xisbigu uu ballaarto, deegaan ahaan iyo dad ahaanba xisbiga xubnihiisa inuu ballaarto oo xafiisyadiisa tuulooyinka iyo degmooyinka dalka iyo dibaddaba laga furo. 2, inaan u howlgalno sidii loo qaadi lahaa isbaarada lagu horgudbay in dalka loo tallaabsiiyo nidaamka axsaabta badan iyo inay ka dhacdo doorasho xor oo xalaal ah, ayadoo tallaabada ugu horreysaana ay tahay in sharciga iyo xisbiyada ee hadba maaragtay la isku tuurtuurayo sida calanka la isugu dhiibayo oo dadka orodyahanada calankooda oo kale qolo ayay isku dhiibtaa, inaan marsiino oo la marsiiyo oo aan ku dadaalno oo bareeshar saarno in sharciga iyo xisbiyadu dhowaan maro. qodobka 3, in dalka aan u soo saarno hogaamiyaal daacada aaminsan in dalku uu ka wada dhexeeyo dadka Soomaaliyeed kuna shaqaysa talada iyo baahida dadka Soomaaliyeed. qodobka 4 waxa weeye inaan isbahaysiyo siyaasadeed oo isbeddel dhaba horseeda aan qayb ka noqonno, kuwaasoo aan isku bahaysanno danta guud iyo maslaxadda dalka oo ah xisbiyada tirada badan ee jira haddeertaan. 5, inaan qayb ka noqonno howlaha dalkeenna iyo dadkeenna loogu adeegayo sida nabadgelyada, arrimaha bulshada iyo wacyigelinta. dowladnimadana lakama lahan kuraastaa la haystaa, laakiin waxaan isku tirinaynaa inaan dowladdii qayb ka mida nahay, waayo dowladdu waa dadka. marka inaan ka jawaabno meelaha daadadku ka dhacaan, meelaha fataahaduhu ka dhacaan, meelaha colaaduhu ka dhacaan, in aan ka dhex muuqanno waa qasab weeye oo u dhaqanno sidii aan tusno dadka wixii aan tusi lahayn haddii dowlad la noqdo. qodobka u dambeeya in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada lala taliyo oo la toosiyo oo inuusan dalkani kala goyn hal mid la yahay, isla markaana haddii ay sharciga dalka iyo maamulka dowladeed hareer maraan inaan ku soo wicino oo ku soo toosino qaladaadkooda iyo dhibaatooyinka ay u geysanayso gaboodfalka sharciga iyo hareermarka nidaamkii dowladnimo inaan sheegno. inahaas waa qorshaheenna dhow. waxaan rabaa haddii xisbi siyaasadeed leeyahay dalkan wuu na khusaynayaa, siyaasaddiisu xaggee u socotaa, dhaqaalihiisu waa xaggee, nabadgelyadiisa xaggee loo wadaa dalkii. waxaan dhihi lahay dhanka siyaasadda runtii waxaa sii ballaartay faragelinta lagu hayo siyaasadda Soomaaliya. dowladda hadda jirta waxay gacanta u gelisay dalkii Soomaaliya inay noqoto
mid iska qalan mid qalan oo miis saaran oo hadba dhinac loo rogayo qof maaragtay inta la duray cirbadii suuxdinta lagu duray hadba dhinac loo rogayo oo sidii la rabo laga yeelayo waxa weeye waxay hareer mareen dadka Soomaaliyeed waxa isku xira waa dastuurka dastuurkana ku heshiinaanay dastuurku wuxuu noo sheegayaa in sanadka 2016 odayaashii dhaqankuna waa noo joogaan dadkii wax ka ansixiyay ahay in dalka sanadka 2016 doorasho ka dhacdo oo xildhibaanada hadda jira ay bedelaan xildhibaano dadku soo doorteen madaxweynaha hadda jira ay bedelaan madaxweyne dadku codkooda ay ku soo doorteen ma aragno iyadana waxaan aragnay si kursiga loo sii dheeraysto wada kale oo qardajeex oo sharciga ka baxsan in la marayo aan u jeedna iyadana xisbiyada siyaasaddu mawaaqiftooda way cadeeyeen wayna sii wadayaan ilaa wadada looga soo leexanayo waayo qardajeex iyo dastuur diid shabaab baa yiri dastuurka lama sameyn karo sharci lama sameyn karo sharciga ilaahay waxaan ahayn lama garab dhigi karo kan laakiin waa wax maamul weey cid garab dhigta ma jirto haddii shabaab diideen dawladdiina ay diiday xisbiyada siyaasadda iyo shacabka Soomaalidu dastuurka ayaga qabsanaya ayaga aan dhahayo dawladdu waxa ku soo nidaamkii axsaabta badnaa waa lama ansixin 3 sano ka hor baadina ansaxdo maxkamadii dastuuriga ahayd ee la rabay in lagu kala baxo oo madaxdu hadday isqabsataan madaxweyne ra'iisul wasaarihi saddexaad baa noo jooga muddo 3 sano saasa la isugu maran yahay wax shaqaha socota iyo meel loo dacwoodo ma jirto maxkamadii markii akhriskeedii dhamaaday oo xildhibaanadii qaranku waa nala joogaan oo la rabay in la marsiiyo ayaa dib inta loo dhigaa la yiri qaanuunka maalgashiga caalamiga hal marsiiyo bal xagee la maal gashanaya ma meelaan maxkamadan lahayn nidaamna lahayn meel loo dacwoodan lahayn waxaa la samaystay madasha wada tashiga la yiraahdo oo hadda isku khilaafsan qaabkii dalka 2016 kadib dawladii markay fikir waa keen weeyday qaabkii loo maamuli lahaa waxay istaageen dawlad goboleedyada qaar iyo dawladda dhexe qaarkood 4.5 kadib ha lagu noqdo ma ay maamul goboleedyada qaar kale ay yiri maya degmooyin baa wax lagu xulayaa qoorta la isku jira waxaan aaminsanahay in gacanta loo gali doono marka u dambaysa oo ajnabigu oo go'aanka saddexaad ee lagu heshiin doono ama la isku raaci doono inuu keeni doono waxaana laga leexday oo aan aaminsanahay in lagu soo dhici doono nidaamka axsaabtu inuu u yahay labadaas qaybood kan dhexdhexaadinaya in xisbiyadu tartamaan khilaafaadkii waa u jeedaan khilaafaadkii federaalka waxay gaartay in birta la isku seefo oo deegaamo ka mid ah Soomaaliya oo runtii aan baaqiyo badan ka soo saarnay oo Soomaaliya badankeeda aan dhihi karnaa dagaal la sokeeye iyo colaado qabiil baa ka socda haba ugu ballaarnaato mid hadda gaalkacyo ka jirta oo aan ku baaqayno mimbarkan aan uga baaqayno in la joojiyo in aan la siyaasadayn dadkaasi waxay wada deganaayeen kumanaan sano boqolaal sano wada deganaayeen in aan la siyaasadayn oo nimanka ka dhex raadinaya siyaasadda inta ku fashilmeen dadka raba inay dagaal ku barakiciyaan oo dagaal ku mashquuliyaan oo mar labaad hogaamiyuhu markuu fashilmo dadka problem buu abuuraa problemkaas wuxuu ekaanayaa geesiga xalin lahaa asagu annagu waxbaan ku leenahay ra'yiga deegaankaasna waa deegaamadeennii kamana yeelayno go'aanka nabadda iyo horumarkay noo gaari karaan laakiin go'aanka colaadda nooma gaari karaan go'aan colaadeed nooma gaari karaan nabad bay noo gaari karaan horumar gaalkacyo in la mideeyay noo gaari karaan gaalkacyo dadkeedu inay hal mid noqdaan ay noo gaari karaan in hal maayar ay yeelatay noo gaari karaan hal boolisin ay yeelatay noo gaari karaan laakiin kama yeelayno dadkii duurka kanaacadu ha ku cunto meel cidlaa oo guryo cidlaa oo madaafiic leela dhacaya kaliya ha soo haraan taas lagama yeeli karo waxaan leenahay runtii dawladda federaalkana waa u mahadcelinaynaa iyo dawlad goboleedyada qaybta ka ah iyo salaadiintu hadda maaragtay ayaguna doorkooda ciyaari doon maantadan warka laga soo sheegayo war fiican ma salaadiintu wali doorkoodii waa taagan yahay rajaynaya inta loo celinayo dhaqankana oo siyaasadda laga fogeynayana xal halkaas laga gaarayo aragtideen marka salaadiinta iyo waxaan ku baraarujinaynaa in dadaalkoodii halka ka sii wadaan oo kala wareegaan nimanka siyaasiyiinta oo isabuundo siyaasadeed noqon nabadgelyadii iyo istiraatiijiyadeedii iyo wixii dalka waa maqan yihiin ciidamada sheeye waa tii hadda laga hadlayay
dalka si ay u joogaan iyo waxay ka samaynayaan iyo qaabka 8 sano la sii maraya meel ay gaarsiin doonaan ma ogin waana isku tiirin jannaada iyaga noo jooga meel kasta iyaga jooga ciidamadeena qaranku waxay la dhacayaan runtii dhibaatooyin tiro badan iyagoo dadaalaya marka waxaan leenahay siyaasad amni oo cad dawladda waa inay keentaa waana qayb ka mid ah ololaha dadka xukunka jooga dawladda qaybaheeda in dalka nabadgelyo darro ay ka jirto mararka qaarkood nacfi waa ugu jira oo waxa weeye xorriyadda iyo abaabul badan iyo dad tiro badan oo siyaasadda hunguriyeynaya imaanaya laakiin dadku haddii cadsadaan ma la imaanayo waxaan leenahay nabadgelyadana ayaa la siyaasadeen sidaan u leenahay maamulada ayaa la siyaasadeen nabadgelyada ayaa la siyaasadeen ciidamadeennu xaq bay u leeyihiin inay helaan inta amisom ay helayso beesha caalamku hadday dhab ka tahay inay Soomaaliya saacidayso ciidan bay u dhisi lahayd dhaqaalaha tirada badan ee nagu xisaabsan annagu nagu xisaabsan yahay ee ciidamada ajnabiga la siinayo waxaa loo goyn karaa qayb ka mid ah ciidamada Soomaalida in la dhiso lama ogola waxaan maqlayaa gaalkacyadaas lafteeda hadda la isku hayo ciidan ajnabi ah oo socda waxa problemkan loo abuurayaa dawladaha dariska mid ka mid ah ciidamadeeda inay meesha geyso ma xagee ma la sii soconaya ilaa ay Hargeysa sii soconaysa marka dambe waxaan leenahay fursad la siin deegaan kale oo nabada in ciidan ajnabi la geeyo fursad yaa la siin dadka Soomaalidu way nool yihiin nabadgelyo way soo karaan runtii dhaqaalaha waxaan walwal ka qabnaa dhaqaalaha dalku meesha uu socdo iyo meesha ku socdo dhaqaalihii dalka wasiirka maaliyaddu wuxuu baarlamaanka ka horsheegay boqolkiiba 38 dhaqaaluhu inuu kordhay laakiin faqrigii iyo busaaradiina boqolkiiba 100 bay hoos u socotay يعني waa way yaabo faqri iyo busaarad ciidamadii mushaar ma haystaan shaqaalihii madaniga mushaar ma haystaan xildhibaanadii dadkii howlwadeenada shacabka iska badaaba dadkii nooga dhawaa waxba ma hayaan dhaqaalihiina waxa la yiri waa kordhay waxaan aaminsanahay warkii hadda u dambeeyay gaalkacyadaas la joogo meelaha ugu badan oo dhaqaalayaasha lagu qaatay kamid waxyaalaha emergency-ga waxba la iska abuuraa emergency-ga dhaqaalaha bankiga yaalo dhan lagu la baxa waxaan leenahay dhaqaalaha dalka si fiican oo loo maamulo dawladda ilaahay amarkiisa waxa la yiri waa dawladda adduunka ugu faqiirsan Soomaaliya dawlad ahaan haddana waxa la yiri waa dawladda ugu corruption ka badan waa dawladda ugu musuqmaasuq badan waana faqri waana musuqmaasuq isma qabataba marka waxaan leenahay dhaqaalihii dalka runtii meel xun buu ku socdaa si xun waa loo maamulaa waxaan leenahay dhaqaalaha dalka anagu waxaan xisbiyada iyo kulli waxa la isku tagi doonaa warbixinaan ka soo saari doonaa meelaha kala duwan nabadgelyada iyo dhaqaalaha iyo kulli iyo sida loo qaatay iyo sida loo xado iyo diyaaradaha la haadayo 24 saac la saaray oo leeyahay 150,200 ku baxday ciidankii booliiska ahaa markii banaanka loo baxana aysan hal kun haysan annagu dawladnimada difaaceeda u taagana ma ahan dawladda inaan lid ku nahay ma aanan xasan sheekh madaxweynaha col ku nahay عمر عبد الرشيد رئيس الوزراء علكم منه وانا ما شاء الله جوجو حزبيه sheeganaya qaarkood laakiin waxa naga dhaxeeya waa dawladnimada haday qaldan waa sheegaynaa mucaaradna ma antaas dadka Soomaaliyeed oo cadeynayna waxaan ku soo gabagabaynayaa waxa la joogaa runtii marxalada adag oo dadka Soomaaliyeed ay tahay waxa ugu muhiimsan waxay ahayd codka qofka Soomaaliga wax la iska xada hadda ka horna waa sheegay wax la iska xada adduunka oo dahabka ka fiican wuxuu yahay waa codka muwaadinka Soomaalida dahabka waa ka qaalisan waxay dawladdu naga dhacday xuquuqdii dadka Soomaaliyeed ee ahayd inay ku doortaan hogaamiyaashooda 2016 ama xildhibaan ha ahaado ama madaxweyne ha ahaado ama ra'iisul baarlamaan ha ahaado way dhaceen dadka Soomaaliyeed marka waxaan leenahay waxaan u wada istaagaynaa inaan xuquuqdaas dastuuriga ah oo ah muwaadinka Soomaaliyeed waxyaaluhu xuquuqda u leeyahay kamid tahay inaan si wada jir ah u soo ceshano markaan soo ceshanayno nabadgelyada dib u geysan mayno dhaqaalaha dalka dib u geysan mayno xuquuq dastuuri ah dalbayna mucaarad weyn ma nihin xuquuq dastuuri ah dalbayna waxaan ku soo gunaanadayaa xisbiga daljir runtii waa sanad jirsaday
waxaan insha Allah isugu imaan doonaa munaasabadda soo socota sanadka soo socda munaasabad kan weyn oo lagu sameyn doono isbartiibada masalan Stadium Muqdisho ama Stadium Konis ama meel banaan inaan ku sameyn doono annagoo u dabaaldegayna inay tahay niyeysanayna annagoo niyeysan inay nabadgelyo noqon doonto annagoo niyeysan in isbedel ku dhacay xukunka annagoo niyeysan inaan meel fagaara oo xora oo dadka Soomaaliyeed isku soo bixi karaan in la isugu yimaado December 2-deeda 2016 yaa rajaynaynaa Soomaaliya guul